madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaany ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ka duwan xafladii hore ee uu ka qayb gali jiray dhagaha shacabka Soomaaliland ku cusbayd. xafladaasi waxaa soo agaasimay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland, waxaana loogu yeedhay xafladda ku dhawaaqida codsiga saxiixa taageerida aqoonsiga Soomaaliland. nuxurkeeda guudna waxa uu yahay codsi ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay u dirtay shacabka muwaadiniinta ee dalkan dhashay kuna kala nool gobolada kala duwan ee dalka iyo dalka dibadiisa, taasoo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay ku qiimeysay sida dalkani ugu baahan yahay aqoonsi caalami ah oo dunida uu ka helo. waxaana shacabka Soomaaliland ay saxeexeen oo ay taageereen in beesha caalamku ay aqoonsadaan Soomaaliland, kaasoo ay ku cadeeyeen codsiga ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay u dirtay. qiimeyn muddo 4 bilood socotay oo dadweynaha lagaga codsanayay in ay soo saxeexaan codsigaasi laguna qabtay gobolada kala duwan ee dalka iyo dalka dibadiisa ayaa ugu dambeyntii noqotay 1,022,000 oo qof oo dhammaystiran. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxay ujeedada laga leeyahay codsigan, waxaanu baaq u diray dunida caalamka kaasoo ugu baaqay inay ictiraafaan oo ay aqoonsadaan Soomaaliland. ujeedada codsigu waxa weeye inay dadku dareenkooda iyo shucuurtooda ay muujiyaan halka ay ka taagan yihiin aqoonsiga Soomaaliland. waa fariin reer Soomaaliland oo caalamka u diraayo oo ku leeyahay aqoonsiga iyo ictiraafka iyo go'aansashada Soomaaliland ma aha wax in yaro siyaasiyiin ay wadato, waa qadiyad qaran. codsigan ay soo saxeexeen inta ka badan 1 milyan insha Allah bidnillaahi kariim, waxaynu doonaynaa inaanu qolkan ku ekaano caalamka inaynu gaarsiino, waynu UN-ta gaarsiino, waynu gaarsiino midowga Afrika, ururka IGAD waynu gaarsiino, ururka carabta waynu gaarsiino, ururka midowga Yurub waynu gaarsiino, waddan kasta waynu gaarsiino. waxaan ugu baaqayaa caalamka inay codsiga dadkeena ay soo sameeyeen ay tixgeliyaan. mas-uuliyiin ku hadlayay magacyada 3 xisbi qaran ee Soomaaliland oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si isku mid ah u tilmaamay faa'iidada ballaaran ee barnaamijkani uu leeyahay, waxaanay soo jeediyeen in meel looga soo wada jeedo aqoonsi raadinta qaranka Soomaaliland. Ambassador Awil Ali Ducaale, Dr. Adna Aadan Ismaaciil, Professor Maxamed Siciid Gees iyo Axmed Xaashi Sidci oo dhammaantood ku hadlayay magaca guddida heer qaran ee ictiraaf raadinta Soomaaliland ayaa ka waramay sooyaalka taariikheed ee Soomaaliland, waxaana ka deyriyeen sida ay xukuumadda Muqdisho ay u xaqirayso qaranka Soomaaliland ee tisqaaday, waxaana nasiib darro ay ku tilmaameen siyaasiyiinta calooshada u shaqaystayaasha ee masiirka ummadda Soomaaliland doonaya inay ka iibiyaan xukuumadda Muqdisho. garyaqaan aadan xaaji cali axmed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa shacabka ku dhiirigeliyay in Soomaaliland maanta ay marayso meel aad u fiican loona baahan yahay in halkaasi laga sii amba qaado, waxaanu sharaxay doorka ay garsoorka Soomaaliland ay ka qaadan karaan aqoonsi raadinta Soomaaliland. gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda ee golaha guurtida Soomaaliland iyo gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soldier ayaa waxa ay taageereen barnaamijkaasi, waxaanay soo jeediyeen in laga wada qayb qaato. madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaany oo munaasabadaasi khudbad taariikhiya ka jeediyay ayaa waxa uu ka markhaati kacay rabitaanka runta ee shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu cadeeyay himilada iyo hal adayga ay ummadda Soomaaliland u leedahay kamira dhalinta mabaadi'da ay aaminsan yihiin iyo ilaalinta madax banaanidooda dalkooda hooyo. waxaan jecelahay halkan uga mahadceliyo dhammaan muwaadiniinta bulshada dareenkooda ku aadan sida uu aaminsan yihiin madax banaanida dalkooda. mudane yeelaya marwey, dareenka muwaadiniintu wuxuu ka markhaati kacayaa rabitaanka runta ah ee shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa kaloo caddaynayaan himilada iyo hal adayga ay ummadda Soomaaliland u leedahay kamira dhalinta
mabaadida ay aaminsan yihiin iyo ilaalinta madaxbannaanida dalkooda hooyo, kuwaasoo aan la yaraysan karin, lana isdiisin karin ama dhagaha laga furaysan karin. madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Silaanya ayaa si adag oo qiimo leh uga hadlay taariikhda goonka ee qaranka Somaliland leeyahay iyo marxaladihii uu soo maray, waxaanu sheegay in Somaliland ay tahay qaran madax bannaan. sidoo kale madaxweynaha Somaliland waxa uu cadeeyay inaanay marnaba aanay ka qayb gelin nidaamka federaalka ee ay ku midoobeen maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. mudane yaryar marweyn waxaan u cadaynayaa dalkii aanu ka goonay ee Soomaaliya, dalalka midowga Afrika, midowga Yurub, Maraykanka, jaamacadda Carabta, ururka Islaamka iyo dhammaan dalalka ku midoobay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa arrimahaas quruxsan. kow, Somaliland waa waddan leh taariikh dheer oo soo jiray ilaa 1887 isla markaana leh xuduudo caalami ah oo la aqoonsan yahay, kana mid ahaa maxkamadaha Ingiriiska. laba, Somaliland waxay ahayd dal gaar ah oo xornimadiisii ka qaatay 26 Juun 1960 dowladda Ingiriiska. waxaan ku biiray lana midoobay 1 Juulaay dalkii Soomaaliya ee Talyaaniga gumaysan jiray. saddex, Somaliland waa waddan isagoo xor ah waddan kale oo xor ah ku biiray, ma aha markii ugu horeysay ee laba waddan oo qaaradda Afrika ka mid ah isku darsadeen haddana kala noqdeen. Masar iyo Suuriya waxay isku darsadeen 1958 waxay kala noqdeen 1961. French Sudan iyo Senegal waxay isku darsadeen 1960 waxay kala noqdeen 1960. Gambia iyo Senegal waxay isku darsadeen 1981 waxayna kala noqdeen 1989. mudane Axmed Maxamed Silaanya madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo sii watay khudbadiisa ayaa hoosta ka xariiqay inaanay ahayn markii ugu horeysay ee dadka Somaliland ay dareenkooda iyo rabitaankooda ay muujiyaan. waxaanu tilmaamay in Somaliland ay tahay dal buuxiya dhammaanba shuruudihii looga baahnaa. maaha markii ugu horeysay ee dadka Somaliland dareenkooda iyo rabitaankooda muujiyaan. shacbiga Somaliland waxay bishii May 2001 kalsooni cod buuxda 97.7% ku taageereen aftidii loo qaaday dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo qadiyadda kooritaanka Somaliland. arrimahaas waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka Jamhuuriyadda Somaliland aan ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed, balse ay tahay mid ku tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbigu qaatay. sidaa daraadeed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa ay ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga Somaliland. waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bani'aadamnimo ee shacbiga Somaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan. qaramada iyo madaxbannaanida Somaliland waxay dan u tahay nabadgelyada, deganaanshaha, geedi socodka dimuqraadiyadda, ganacsiga iyo horumarka geeska Afrika iyo kan caalamka intaba. ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa shacbiga ugu baaqay guda iyo dibadba in meel ay uga soo wada jeedaan jiritaanka iyo ilaalinta qarannimada Somaliland. ugu dambeyn waxaan shacbigana Somaliland ugu baaqayaa guda iyo dibadba meel kastoo ay joogaan inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qarannimadooda iyo qadiyadooda, inay rabitaankooda ku muujiyaan cod dheer iyo cudud midaysan. Masaki Dairasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi, telefishinka qaranka Somaliland, magaalada Hargeysa.